بسم الله. halkan waxaan ku duubaynaa casharka 14 ee bogga 81 casharka wuxuu ku saabsan yahay kala goynta jajabka leh hooseyaal kala duwan. haddii aad kala goyn lahayd hooseeyo kala duwan, waxaa loo baahan yahay in aad hesho jajab u dhigma jajabyada aad kala goynayso, oo macnaheedu yahay jajab u dhigma jajabkaas oo ay isku mid noqonayaan. mathalan 1 loo qaybshay 2 iyo 2 loo qaybshay 4 waa isu dhigan, ama jajabyo oo haddaba 2 ka badan yihiin la kala goonayo. kulligood waxay u baahan yihiin in aad hesho jajab mid walba mid u dhigma, waana sidii isu geynta oo kale loo sameeyey. tani waa la kala goonaya markaad midayso hooseyaasha. kala goo jajabka, waxaadna adigoo kala goonaya sareeyaasha, hooseeyahana mid keliya ka qaadanaya aan se kala goonin. waxaa khalad weyna inaad hooseyaashana kala goyso. haddii aad kala goysay hooseeyaashu way isla eg yihiin, way baaba'aya oo eber baa ka soo baxay. taasna waxay khaldaysaa jawaabtii. haddii ay adkaato helidda dhufsanayaraha oo la helaa ayaa ah muhiim. haddiise ay adkaato dhufsanayaraha ay wadaagaan labada hooseeya inaad hesho, dariiqada kale ee loo mari karaa waa adigoo si isweydaarsa hooseeyaasha isugu dhufta, oo hooseeyaha hore kor iyo hoos jajabka dambe ku dhufta, hooseeyaha dambena jajabka hore kor iyo hoos ku dhufta. isticmaalka habkaasi iyo adigoo hela dhufsanayaraha ay wadaagaan labada hoose waa isku mid, waxay keenaysaa jawaab isku mid ay keenaysaa. haddaba waxaan bilaabaynaa marka fikirka markaan ka gudubno jawaabteenna tusaalaheena ugu horeeya oo koowaad wuxuu noqonayaa 18 5 loo qaybshay 6. waxaan ka goonaynaa 2 3 loo qaybshay 8. waa hab dheerar ah habkan ku shaqaynayno. waxaa noogu horeysa marka hore inaynu ogaano hooseeyaashu way kala duwan yihiin. maxaan ku midayn karnaa marka? waxaan ku midayn karnaa hooseeyaasha inaynu helno LCM-ka, ama aan isweydaar isugu dhufno 8dana sareeyaha 5 ku dhufano iyo hooseeyaha 6. sidaas lamidana aan 6 ku dhufano 3da 8dana aan ku dhufano. laakiin waxaa ka sahlan adigoo LCM-ka yar. marka LCM-ka muxuu noqonayaa 6 iyo 8. dariiqadaas haddaan qorayo waa habka ugu sahlan LCM-ka lagu heli karo. waxaan u qaybinayaa 2, labadaba way u qaybsantaa. kana waa 3, kana waa 4. wax labada hadda 3 iyo 4 u gala ma hayno, hal aan ahayn. marka waxaan arkaynaa in halkaa ku dhammaatay. waa isku dhufanayna. marka waxaan isku dhufanaynaa 2 iyo 3 iyo 4. waxaana soo baxaya waa 24. haddaba hooseeyaheena see 24 uga dhignaa? waxaan 24 uga dhigaynaa
waxaan ku dhufanaynaa sideedaan soo qoraynaa shanta waxaan ku dhufanaynaa iyo lixda waxaan ku dhufan karnaa 4 haddaan lixda ku dhufanana waa inaan shantana ku dhufanaa halkaa waxaa inooga dhammaaday qaybta koowaad halkaa waxaa inoo yaalla sidaas lamidana ka goyno labadii waa soo qoranaynaa 3 baan haynaa iyo 8 waxaan ku dhufanaa kor iyo hoos si aan hoos uga dhigno 4 3 baan ku dhufanaynaa korna 3 baan ku dhufanaynaa waxaan halkaan ku soo guureynayaa marka hoose waxaan haystaa marka 18 20 loo qaybshay 24 laga gooyay 2 9 loo qaybshay 24 hadda marka waxaan sameynayaa 18 iyo 2 waan kala goonayaa oo 16 20 iyo 9 waan kala goonayaa oo waxay noqonaysaa labadaas aan kala gooyay labadii hore waa kala gooyay labadana waa kala goonayaa waxaa ii soo baxay marka 11 loo qaybshay 24 waa jawaabteeda kama dambaysta ah oo aan ku soo xirayo jawaabteeda tusaalahaasi waa tusaalaheena koowaad ee aan ku muujinaynay jawaabtaas waan ku helnay jawaabteennii kama dambaysta ahayd waxaan gudbaynaa tusaale kale asagana kaa lamida oo aan ka soo qaadanayno su'aalaha kan hadda noo muuqda waxaan fiirinaynaa su'aasha exercise-iga ah su'aasheeda koowaad exercise C question number 1 waa page-ka 82 meeshan waxaa noo yaala su'aasha koowaad waxaana leeyahay from 13 8/13 subtract 8 3/26 su-aasha lay siiyey waa saas waay waxaan rabaa marka inaan u qoro qaabka kee hor dhigayaa keese gadaal dhigayaa numberkan fromta wata waa kan wax laga goonayo oo weyn wuxuu noqonayaa marka 13 8 loo qaybshay 13 subtract waxaan ka goonaynaa 8 3 loo qaybshay 16 waxaan rabaa marka inaan hooseeyahayga mideeyo
sidee ma hooyeysa ayaga ku imaan karaa waa inaan ogaadaa 13 iyo 26 waxay wadaagaan 13 iyo 26 waxay wadaagaan 13 waa 1 iyo 2 marka waxaan ku ogaan karaa maadaama intaan haysto oo labada markaan 13 ku dhufto 1 2 ku dhufto waxay soo baxay 26 marka inuuba LCM kii 26 ba taaba ay soo baxday si sahlan marka waxaan ku dhufanayaa 13 kii 8 loo qaybshay 13 kii kaliya baan 2 ku dhufanayaa kan kalena sidiisa aan soo qoranayaa waxaan haystaa 13 16 loo qaybshay 26 waxaan ka jarayaa 8 3 loo qaybshay 26 ko waxaan kala jarayaa labadan 13 kan 8 ka jarayaa waa 5 16 iyo 3 waan kala jarayaa oo waxa soo haraya 13 26 waa fududeyn karaa sababtoo ah waxay noqonaysaa 13 kor haddaan u qaybsho 26 kan haddaan 13 u qaybsho waxay soo baxay 5 hal loo qaybshay 2 waana jawaabteeda ugu dambeysa casharkan marka wuxuu la mid yahay casharadii hore aan soo dhigaynay oo aan wax badan kaga cusubnayn oo ah inaad LCM ka raadinayso kaliya labada numberka sida hooseeyaha u midayn lahayd haddaa hooseeyaha midayso kor iyo hoosna aad numberka aad hooseeyaha ku midaysatay labada dhinac aad ku dhufato kala goyntaas kaliya ku haraysa inaad xisaabta kala goysho hadduu mixed number yahayna inaad horgalayaasha kala goyso sareeyaashana kala goyso halkaas ayaan ku joojinaynaa casharkeena waxaan rajeynayaa marka inay homework aad ka shaqaysan haddii ilaahay